Do it for the love, we not do it for the likes. Make them know success don't come overnight. Assalamu alaikum koolaba alif ba ta abcd 1 2 3 waa anigi fartuun maalin cusub aragti cusub kusoo dhawo channelkayga hadaad ka hesho videogan like ii taabo ra'yi hadaad rabtid inaad dhiibatid comment ku soo qor aragti saan camal hadaad rabtid subscribe click ku sii maanta videoga wuxuu ku saabsan yahay confessions waxa waaye qalado hore ama wax ay rabaan dadka inaan ku waana qaadano ee hore u soo sameeyeen ما أقانا dadkan inay Soomaali yihiin ma aqaan inay gaala yihiin Allah waclam haday ku soo daraan abaayo aboowe marka Soomaali waay laakiin af Soomaaliya ku hadlaasay ku garanaysin adinkiina bahada rabtiin ina ogaatiin waxay yihiin Instagram kayga saarayeen aan hore u soo saaray luqadda af Ingiriiska ku qoran yihiin marka waa kaasa hano bilaabato qofka koowaad wuxuu yiri saaxiibteeda qaaliga waxay leedahay shirkad dhar waxay gadaa cabaayooyin iyo goonooyin aniga waligay maan u sheegin laakiin waxa rabaa anigana shirkad saas camal inaan sameysto oo aan dhar gato waan ku faraxsanahay in ay iga hor bilaaday sababtoo ah waxay i tusaysaa habka loo sameeyo iyo jidka loo raaco ayadaan ka baranayaa waxyaalaha la sameeyo wax kasto ay qalado ani teedeeda baan ku sii doonaa maana u sheeganin inaan rabo mar dhow inaan bilaabo manibci mana ka xumi saaxiibteeda dharkay gado laakiin isku dooq manihin ana ka dooq fiican waa ka dooq duwanahay qof fiicanna ana ayada aniga ka fiican marka qofkan saaxiibteeda baa dhar gado ayadana waxay rabtaa dharkaas camal inay gado oo laakiin ay ka fiicnaato saaxiibteeda saaxiib fiican mateeda ada camal ilaahay ka ilaaliyo qofkan kale wuxuu yiri gabar baan been u sheegaa waxay joogtaa dalka Kenya waxaan isticmaalaa masuuraha ilma adeerkayga bil baan sheekeysanayaa kama xumi inaan naagtan been u sheegay nimanka waxay ula sheekaysataa ayada inay qurbaha imaato markasta waxay i weydiisaa xaaladda Sweden see tahay anigana waxa ula sheekaystaa maadaama aan caajisanahay qofkan kale wuxuu yiri confession ninkeyga aan 6 sano isqabno aabaha caruurteeda 4 caruur aan dhalay wuxuu guursaday naag kale aniga ma aqaano meel aan ka xumahay haday ahaato cunto karis haday ahaato guri nadaafad haday ahaato shaqo ninkan waa ka taxadiray asagana wuxuu igu mahad celiyay sidaan wuxuu iga dhigay qof aan anficeenin muuna ii sheeganin naag kale inuu raadinayo mana ii sheeganin inuu guurkan ku faraxsaneen wuu i qiyaamay waan dadaalay aniga nolosha meel kasta ninkan waa ka qanciyay macala waan shaqeeyaa lacagteeda haafan siiyaa markasta uu i rabo diyaaraan u ahay ilmahayga waan ka taxadaraa ninkan meel kasta waan ka qanciyay laakiin waa ku filnaa waayay guurkan ma rabo inaan ku sii jiro asaga hurdo buu iga kiciyay suu hurdada asaga iga kiciyay waxaan rabaa aniga caruurteeda asoona ogeyn wadan kale in aan aadno subhanallah qofkan kale wuxuu yiri confession sanadkii 2018 ramadaankii ahaa aniga hal maalin maana ka soomin waa ka xumahay laakiin waan sameey waayay maalin kasta ilaahay waxaan weydiistaa dambi dhaafis ilaahay ha ku dambi dhaafo hadaad reason sax aad haysanin oo caafimaad ahaan aad u soomi weyso maalin kasta waa saa u sheegtay ilaahay dambi dhaafina weydiisatid waa ilaahayna ku soo hanuuniyo qofkan kale wuxuu yiri confession ninkeyga aan qabo familkiisa waxay u umaadeen kow in ay weydiistaan gacanta walaasheeda weyn way diiday maadaama ay nin kale la socotay familkeyga oo ani aan ka dhashtay waxay dhaheen ma ku faraxsan tihiin midda yar inaan siino kow waan ka xanaaqay kadib markaan wada hadalnay waalidkeyga waan ogolaaday ideerkooda oo waan qaatay wiilka waa la baxay markaan la baxay dhowr mar waxaan ogaaday inaan ka helo asagana wuu iga helay haddana waa isqabnaa taas cib kuma jirto walaashaada koo la rabay way diiday kadibna adaa lagu guursaday waxa xumaan lahayd walaashaada iyo ninka hadda ku qabo koob hadii xiriir ka dhaxay lahayd oo markaas intee kala tageen adiga meesha soo gashay laakiin hadda alfkaayo noqday alxamdulillah ka soco
qofkaana kusoo gabagabaynaynaa waxay tiri assalaamu calaykum wacalaykum assalaam abbaay fartuun waan ku jeclahay dabeecadaadaan jeclahay qosolkaagaan jeclahay wejigaaga saad tirahdidaan jeclahay waxaan rabaa maalin maalmaha ka mid ah sida adiga nolosha inaan u jeclaado marka aniga dhibaatadeeda kuu sheego waan u jeedaa wejiga saa dhihi doontid ma aqaani inay confession tahay iyo inay daalimar tahay aniga waxaan leeyahay saaxiibadaasi aniga zaaid iskuma dhowin oo saaxiibo lilaahi iskuma nihin laakiin waxaa isla tagnaa jaamacad ani ayadana saaxiibaha waa wada wadaagnaa mar dhaweyday waxaana tustay anigii saaxiibahayga wiilka ee la socoto ay muddo 1 sano isla socdaan waxaan arkay wiilka Instagramkiisa kadib masuurihiisaan fiirsaday guriga markaan tagay waan sii raadiyay because kuma qanacsanayn hal masuur kaliya bil dhan baan fiirsanayay wiilkan kadib message baan u diray message-ka wuu ii soo jawaabay asaga ma oga inaan gabartiisa aqaano laakiin shukaansiga wuu ila waday aniga asaga hadda muddo 1 isbuuca waa isla hadloonaa maalin kasta iyo waqti kasta aniga hadda wiilka waa rabaa wuu i qanciyay waan rabaa inaan sii wato kalama jeceli aniga xiriirkeyga iyo gabartaas inuu burburo ninkan wuxuu leeyahay nin dhameystiran oo perfect ah dunyada inta nimanu joogo waxay ka qabatay masuurkaas gabarta ee ku tustay in aaraasatid aan ninka ka qaadatid don't worry saa ku hesh laga qaadanaya anigana waa iga baqsiis markaa tiri saad u qoshashid iyo sida u hadashid iyo dabeecada aniga dabeecadeed maarta inaa soo xadid marka hadda waxa qad ku soo gashay aniga inaa xadid miya ilaahay ka qabto wax kala sheega ma aqaan tan waan ku soo gabagabay waan keedsanay inaan ku soo gabagabay because waa qof asaga isku qanacsaneen oo umada kale wixooda rabo inuu qaato abaa ilaahay ku soo hanuuniyo ilaahay maaragtay ha ku tuso qeyrka sida ninkan u qaadatay naag kale baa kaaga qaadanayso gabartaasna alxamdulillah because nin fiican ma ahayn ba haduu naag kasta iskala hadlaayo faantay adeena qof yoomatid ilaahay ku soo hanuuniyo intaas ku dhameynaa ilaahay hana soo wada hanuuniyo ilaahay jidka toosan hana wada tuso ilaahay dhibaatada hanaga ilaaliyo ilaahay nuuca inta aragnay kamid iyo kuwa ka daranba ilaahay hanaga ilaaliyo intaas ku soo gabagabeynaya qaraabada haligu salaamo hal iska taxadaro wakasa success don't come overnight no matter no substance over hype